السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن السلام أخيرا شرفت له xilli kastoo idin tahay wacan wanaagsan waa mar kale iyo muuqaal kale cusub kusoo dhawaad. Waxaan rabaa maanta su'aal yar liisoo weydiiyey inaan ka jawaabo. Su-aasha waxay dhahaysaa sida tan: walaal waxaan daawadaa muuqaalada qaqaawan ee galmada. Markaan waxaan isku arkay haddaan iska joojiyo xitaa inay sidii qabitiin camal ii qabanayso oo aan dareemayo dareen zaid ah, xitaa aan cuni karin cuntoodii aan ka go'ayo micnaha ilaa aan muuqaalkaasito ama muuqaaladaas foosha xun aan daabto. Walaal waxaan u baahanahay talo ila talo u baahanahay. Fadlan muuqaalkan intaan guda gelin channelka cusub subscribe noo saar, muuqaalkan like noo saar, la socod wanaagsan. Haddaba sidee la iskaga joojiyaa daawashada kilibyada xunxun ama kilibyada galmada ah? Jawaabta: daawashada galmada waa musiibo aad ugu faaftay baraha bulshada ama internetka guud ahaan. Dad badan ayaa lagu ibtileeyay musiibadaasi. Marka hore, qofka arrintaasi ku dhaco waa inuu ka toobad keenaa dembigaasi uu galay. Teeda kale, qofka marka uu sii raaco waxay noqonaysaa balwad uu ka tagi karin, wayna ku adkaanaysaa inuu joojiyo. Dhibaatooyinka daawashada filimada galmada aad bay u badan yihiin. Waxaa ugu muhiimsan walwalka iyo cabsida iyo fikirka oo xumaada ama qofka maskaxdiisii si daciifta. Sidoo kale, qofku wuxuu nacaa galmada xaaskiisa ama galmada caadiga dabiiciga ah, waayo filimada noocaas ah waxay ku dhisan yihiin been iyo khuraafaad. Ninka wuxuu raadinayaa naag sidaasi oo kale ah oo been ah. Waxaa sidaa u jeedo waa jilin, waa action. Imisa nin ayaa gurigooda sidaasi ku waayay, sidoo kale dumar gurigoodii ku waayay arrinkaasi foosha xun ah. Waxaasi kilibkaas xun ama filimkaas xun ay daawanaysaa ama daawanayaa wuxuu rabaa xaaskiisa ama ninkeeda inay saas oo kale ay samaysay. Waxaasi waa khuraafaad. Qofka lagu ibtileeyay waa inuu alle baryaa markaste, waa inuu weysaystaa, weysada ku dadaalaa. Sidoo kale markasta waa inuu soo xasuustaa dhibaatooyinka uu kala kulmi karo kilibyadaasi xunxun. Maskaxdiisa waa inuu ku hayaa. Sidoo kale waa inuu isku mashquuliyaa waxyaalo maskaxda mashquulin karo oo wanaagsan, sida qofka inuu wax quraan akhrisado, buugaagta akhrisado iyo wixii la midka ah oo wanaagsan. Inuu qofku wax wanaagsan uu ku dadaalo oo isku mashquuliyo. Waa inuu iska ilaaliyaa inuu kaligiisa meel joogo, waayo marka aad dadka ku dhex jirto nafta iyo shaydaanka awoodooda way ka yar tahay markaad kaligaa tahay. Marka waa sino galmadaasi aad daawanayso, ka toobadkeen kana fogow. Alle wuxuu yiri: walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxishatan wasaa sabiila. Ha u dhowaanina sino, ileen waa xumaane wadnaha u xune. Qofka bini'aadinka meesha xubinta ugu muhiimsan waa qalbiga. Haddii wanaagsanaato jirkiisa kule ayaa wanaagsanaan, haddii xumaatana jirkiisa dhana xumaanaya. Marka galmadaas aad daawanaysid ama sinidaasi samaynayso waxay maskaxdaada ku samaynaysaa stress, walwal, cabsi. Qofka xataa psychological problem ku dhacaysaa, xataa qofka inuu xifdin waayo, wax akhrin waayo. Markasta alle u toobadkeen. Waxaa dembi waaye, alle u toobadkeen kow. Marka labaad, weysada ku dadaal, kelinimadana iska ilaali. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.